suurad waxaan ku barayaa haddaad biyahan ku akhriso ilaahay subxaanahu watacaala jirkaada waxa ku jira hadduu noqdo cayn ama insi ama jinni ama wax la mid ah oo jirkaada dhibayodan arkaynin iyo amraadoo dhan ilahay kaga caafinayo ibnu qayim waxa uu leeyahay waa shifaa dhammaystiran waa ruqyo dhammaystiran waa ghinaa lagu helaa deeqtooni baa lagu helaa faqrigaa lagaga baxaa waa la isku daaweeyaa waa falaax waa guul hamiga iyo kurbada iyo walwalkane daaway u tahay buu leeyahay suuradda iyada ah 7 jeer haddaad biyahan ku akhriso kadibna aad cabto biidni illaahi albaari jirkaada waxa ku jira waa ka baxaya cudurka ku jira haddaad ilaahay ku kalsoontahay subxaanahu watacaala yaqiin kaamilan aad ku qabto inuu kalaamullaahi dawo yahay ilaahayna jala jaaluhu aadan u shariik yeelin waaxid alaxad asamad keligina aad ku xidhan tahay adiguna aad muwaxid tahay ilaahay subxaanahu watacaala waa uu kuu sahlay inay caafimaad ku noqoto suuraddaasi waa suuratu alfaatixa buu leeyahay ibnu qayim hiya alfaatixa hiya ashaafiya hiya alkaafiya waa addaa dawado dhan daa oo dhan bay daawo u tahay